waxaan maraynaa uu yiri 21st century qarnigii 12 ha 1975 baan maraynaa marka sidaa darteed waa simantihiin waaw garoonkii dhan baa isqabsaday ma garat aniga waxaan ku dhawaada isaga dhan intaan qabsado adduunka shaka buuxiyo mana garanaynin anaga sharciga qoyska xagga baabka iyo islaamka ama diinta weegi ku xiga banaanbax weyn baan samaynay khamiistaan banaanbaxnay jimcaheedii oo masaajidadii xamar laysugu yimiday ayaa tii ugu dheereed ka dhacday waxaa qabsaday dhalinyar masaajidii bay qabsadeen waxay tarjumeen khudbadii madaxweynaha oo sideedii aan waxba lagu darin waxaa meesha maartay ka dhacday marka dood diineed oo madaxweyne muslim oo islaan oo ulil amri islaan ayaa wuxuu yiri ragay dumarka waa siman yihiin ilaahina nama simin khudbadan madaxweynaha tiriyo halkiiba maartay waxaa ka kacay buuq maalinta maxamed siyaad ceel jaalow jiray markiiba taar baa loo diray waa la ogeysiiyey magaaladii waa laga qabsaday magaaladii waa laga qabsaday amar baa la bixi bulsii mataar inay masaajidada gasho oo mikrofoonada demiso oo dadkana dareeriso oo wixii khudbadeynayna la soo xiro sidaaba waxaa lagu xiray 10 dhalinyaro oo wadaad 10kii isla wiigi waxaa la geeyey maxkamadda waxaan kaa kala iloobay 1971 kacaanka kan wuxuu ka soo guursaday Suudaan sharciyo la dhihi jiray 26 article qofkii banaanbaxa waa dil qofkii hebel waa dil wax allaale wixii subversive oo dawladda ka soo horjeedo waa dil article 54 waa tay maaragtay waa tay raggi golaha sare dhexdooda lagu apply gareeyo Allah u naxariisto salaad gabeeri ceenaashi dheel ay maaragtay ku dhacday fallaada sharcigaas oo ahaa marka sharciga wadanka yaalo dawladda sharciga bay u tiigsatay wadaadadii waa dil baa lagu xukumay mar alaala markii dil lagu xukumay ayaa maxay ahaday wuxuu yiri shir degdeg ah tiyaatarka la isugu yimaado ururadii oo dhan wuxuu u yeeray muftiyiintii culimadii ugu waaweyneed ee magaalada xamar ku nooleed waxaan ka xasuustaa Sheekh Ali Suufi waxaan ka xasuustaa Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi waxaan ka xasuustaa Sheekh Maxamed Iimaan waxaan ka xasuustaa Sheekh Abuukar Maxla Suulay yani adigu muxuu ahaay culimadii ugu waaweynaa hadaa Sheekh Ali Suufi waxa lagu waday raar miskiinka wheelchair khudbad buu la kacay as usual aniga xasan abshir waa ag taagana wuxuu yiri been baa layga sheegay waxa la yiri dawladda Soomaaliya waxay dil toogasho ku xukuntay culimo waxaan rabaa buu yiri inaan weydiiyo ummadda Soomaaliya culimada aan aniga qabtay ee aan dilka ku xukumay waa kuwee war culimadii dalka xukumtay waa kuwaan hortayda safan Sheekh Hebel istaag Sheekh Hebel istaag Sheekh Hebel istaag magacyada dhan buu tilmaamay culimada aan dili waa war dhalinyaro saqraamiin oo ciyaala suuq oo imberelida caalamada dabada ka wado oo maartay qalqal dawladda galiyay ayaan xiray oo dil ku xukumay waa kuwana waxaan ku sheegaa ducaale aniga at that time diinta ma aqoon laakiin hal nin oo wadaado yiraa waa beenta hal nin wadaado yiraahdo waa qalad kidigood way wada aamuseen maxaa u malaysa marka shacabka Soomaaliya ma garat marka lobby baa bilaabmay wada hadal waa loo tagay saad ogtahayne dawladii maartay Maxamed Siyaad golihiisa sare wuxuu siiyay full authority amnesty-ga asagoo leeyahay inuu maartay waxyaabo qaar kood asaga power u leeyahay marka waxay ku magacaabeen full power oo in ayaga waxba ka qaban karin